saddexagalka Bermuda sidoo kale loo yaqaano saddexagalka shaydaanka ee ku taala waqooyiga badweynta Atlantiga halkaas oo la sheegay in lagu waayay diyaarado iyo maraakiib tiro badan oo ilaa hadda la isweydiinayo meel ay China cirib dhigeen waxaase dadka qaarba ay aaminsan yihiin in goobtaas ay degan yihiin qoomam jin ah oo sabab u ah waayitaanka aan jawaabtiisa weli helin kuwaasoo falalkan u sameeya baalay si ay u afduubtaan dadka kadibna u daraaseeyaan halka dadka qaarna ay sheegayaan in cufisjiidad xoogan uu ka jiro goobtaas kaasoo wax kasta nuuga iyo weliba fikrado kale oo iyana cajiib ah oo lagu sheego goobtaasi arrimahan qaarkood ayaa lala xiriirinayaa butaaca gaaska badweynta ee loo yaqaano methanka ee ka soo baxa badda iyo weliba khalkhalka ku yimaada xadhkaha juqraafiyeed ee hirarka baddu kiciso sanadkii 1964 shilal kale oo dahsoon ayaa ka dhacay aagaas oo ay ku jireen 3 diyaaradood oo rakaab ah oo lagu waayay saddexagalka Bermuda Charles Berlitis oo awoowo u ahaa ninkii aasaasay dugsiyada luqadda ee Berlitis ayaa sii kiciyay hadalhaynta waagaas jirtay isaga oo sanadkii 1974 buuggii uu ka qoray saddexagalka Bermuda si weyn buuggaas ugu iibiyay suuqyada caalamka tan iyo markaas tiro badan oo kamid ah qorayaasha ugu caansanaa waagaas ayaa ku sheegay saddexagalkaas tii ugu khatarsaneed isla markaana ugu darneyd ee xilligaas iyagoo siyaabo kala duwan u cabiray fikradooda sheegaysa in halkaas ay ku nool yihiin jiman ama bahalo badda hoosteeda ku jira oo wax kasta cuna ilaa laga soo gaaray in saynisyahanadu ku sheegeen inuu halkaasi ka jiro cufisjiidad aad u xoogan halka aqoon-yahano badan oo juqraafiyeed iyana ay ku tilmaameen arrintaas inay sabab tahay gaaska methane ee ka timaada badda hoosteeda barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa ninkii ka badbaaday saddexagalka Bermuda iyo wixii uu ku soo arkay diyaarad laga lahaa dalka Mareykanka oo nooceeda loo yaqaanay Beechcraft Bonanza ayaa ahayd diyaaradii uu saarnaa duuliyahan oo lagu magacaabay Bruce Chernon diyaaradan oo ahayd nooca yaryar ee raaxada ee private jetka ayaa waxa la saarnaa ninkan laba rakaab oo kala ahaa saaxiibkiisa xagga ganacsiga iyo weliba aabihiis duulimaadkan ayaa loo qorsheeyay inay diyaaraddu ka duusho Bahamas una duusho xeebta Florida taariikhdu markay ahayd 4 bishii December sanadii 1970 Bruce wuxuu si maalinle ah safar badan ugu kala bixin jiray Bahamas ilaa iyo Florida weligiis wax dhibaato ah lama kulmin laakiin 4 bishii December ayay ahayd maalin xusid mudan sida caadiga ahna safarka Bahamas ilaa Florida wuxuu inta badan qaataa 1 saac iyo badh laakiin safarkan waxa uu ahaa mid ka duwan waxa uu qaatay 45 daqiiqo oo kaliya waa arin argagax iyo naxdin ku abuurtay dad badan isla markaana ay la yaabeen sidaas darteed aan jeclaaday inaan idin la wadaago isla markii ay diyaaraddu kacday oo gaadhay joog dhan 10,000 oo feet Bruce waxa uu arkay daruur madow oo soo socota markii ay diyaaraddu ku soo dhawaatay daruurtu markasta oo lagu soo dhawaado waxay noqonaysay mid aad u weyn Bruce waxa uu suurto gashay inuu ka weecdo daruurtaas oo dhanka kale uu ka soo baxo tanise inta kaliya kumaysan eekaan oo markii ay diyaaraddu sare u kacday oo ay gaadhay 11,000 oo feet Bruce wuxuu arkay daruur kale oo madow wuxuu markaas garowsaday inuusan xal kale u hayn aan ka ahayn inuu mar kale daruurta dhex maro markii uu Bruce soo galay daruurtii labaad hareerihiisa oo dhan madow ayay ahayd mana jirin hal meel oo ay ka bidhaamisay falaadhaha cadceeda intii uu ku dhex jiray daruurtaasi cimiladu maalintaas waxay ahayd mid caadi ah mana jirin roob ama onkod sidaas darteed Bruce wuxuu ku wareeray sababta uu arkay daruuro madow oo midka kale ka sii madowdahay isaga oo degan oo si taxadar leh ugu dhex wareegaya daruurta waxa uu si lama filaan u arkay olol iftiin ah oo meel ka soo baxaya Bruce isla markiiba waxa uu gartay inaanay jirin wax hilaac ah ololkan meesha dhan qabsaday oo iftiiminayana uu meel kale ka yimid oo aan ahayn mid dabiici ah wuxuuna sii waday duulistii daruurta dhexdeeda weligeedna uma eekayn mid sii dhamaanaysa ama soo afgo'aysa wuxuuna duuliyihii u maleeyay in xilligan la joogo xilligii uu dhimanayay isagoo yaaban wuxuu arkay dalool yar oo iftiin ah kaasoo calaamad u ah meesha ay daruurtu ku dhamaanayso Bruce wuxuu bilaabay inuu diyaaradda u jeediyo si xawli ahna u abaaro dhankaasi si lama filaan ah waxay indhihiisu markiiba qabteen oo ku arkay waxyaabo aan horey u arag oo hareerihiisa ka dhacaya daloolka iftiinkaas oo hadda marka ay diyaaraddu ku sii dhawaato si yaraanaya ay durbadiiba dhammaan qalabka elektrooniga ah ee diyaaradda ku jiray istaageen waxayna noqdeen kuwa aan shaqaynayn Bruce wixii intaa ka dambeeyay gacanta kumuusan hayn maamulka diyaaradda oo waxay diyaaraddu ku socotay oo waday ciidan aan la aqoon waxay yihiin balse muusan rajo dhigin oo wuxuu go'aansaday inuu ka baxo daloolkaas yar ee daruurta marxaladaas oo qiyaas uu ku sheegay ilaa 20 ilbiriqsi waxayna ahaayeen kuwa xusuus mudan oo noloshiisa ka bixi weeday maadaama Bruce uu ku guuleystay inuu ka baxo daruurta mugdiga ahayd ugu dambeyntii markii uu ka soo baxay daloolkaas yar ee mugdiga ahaa duuliya Bruce wuxuu dareemay gabi ahaanba inay diyaaraddiisu muddo 5 ilbiriqsi ah ay sabaynaysay hawada isla markii diyaaraddu xaaladeedii caadiga ahayd ku soo noqotayna oo Bruce dib u helay gacan ku haynta diyaaradda waxa uu la xiriiray xafiiska maamulka hawada ee laga hago diyaaradaha
oo wuxuu rabay inuu ogaado meesha uu joogay xafiiskuse way u suurtageli weyday inay ka war helaan goobta uu ku sugnaa maadaama duulimaadkii aanu ka muuqan raadaarka balse wax yar kadib duuliye Bruce waxa uu gartay inuu mar hore uu gaadhay Miami, Florida, laakiin wuxuu isweydiiyay sidee bay tan u suurta gashay. Diyaaraddaas ayaa sida la qiyaasay xawaaraha ay ku socotay gaadhayay 180 kilomitir saacadiiba, mana jirin wax sharaxaad oo la xiriidha sida ay diyaaradani ku jartay 45 daqiiqo oo kaliya. diyaaraddu waxay si nabad ah uga soo degtay garoonka Miami, balse duuliye Bruce ayaa arintaasi u waayay jawaab sababta diyaaraddu xawaaraha intaa lagu jartay maadaama uu ahaa duuliye aqoon sare leh. hase ahaatee arrimahan oo u dhacayay si mucjiso ah iyadoo aan wax sharaxaad cilmiyeed laga helin ayaa habeeno badan hurdo la'aan ku riday oo xal u waayay duuliyahani. Bruce oo ay weheliyaan urur uu isagu lahaa ayaa bilaabay inay baaritaan qoto dheer ku sameeyaan arintan si ay jawaab uga helaan. xitaa wuxuu la tashaday injineero hawada iyo waliba barofesoro, laakiin qofna tan kama siin xal uu isagu ku qanci karo. haddaba ninkan ayaa go'aansaday inuu diiwaan geliyo sheekadan, wuxuuna ka qoray buug loo yaqaano Beyond the Bermuda Triangle oo la macno ah wax ka sii durugsan saddexagalka Bermuda. si kastaba ahaatee dhammaan arrimahan oo dhan tan duuliye Bruce ama kuwa kale ma jiro hal aragti oo xalisa saddexagalkan mucjisada ah. shakiga badan waxa ayna sii xoojisay in waxyaabaha ku luma saddexagalka Bermuda oo aan sabab guud ilaa haatan loo hayn ay kulminayso shil kasta oo ka dhaca Arizona. arrintan waxaa ka sii daran in kastoo duufaanada iyo hirarka gacanku ay keeni karaan caqabado dhinaca socdaalka ah, laakiin shirkadda caymiska ee badaha ee Lloyd's of London uma aqoonsana saddexagalka Bermuda inuu yahay meel khatar gaar ah leh. sidoo kale ilaalada xeebaha Mareykanka ayaa dhankooda sheegay in dib u eegis lagu sameeyay diyaarado badan iyo khasaarihii maraakiibta ee aagaasi ka dhacay sanadihii la soo dhaafay aysan jirin wax la ogaaday oo tilmaamaya in khasaaruhu ay ka dhasheen xaalado caadi ah balse yihiin kuwa qarsoon oo aan la aqoon waxa sababay. barnaamijkeena xulashada dunida oo kala socoto Horfadhi TV.